qofna dunida muu dhalan isagoo haldooro dadku wada qiraayo xidhan duubka sharaftee waxaa ruux ka dhiga dayac. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad hee asxaabteyda qaaliga ku xiran Farxiyo Lucky. hadaba maskiintii Farxiyo Lucky ahayd waxaan leeyahay dhamaantiin maalin wanaagsan, maalin qurux badan. dadkii hore ila jooga waxaan leeyahay fadlan haddii aad videogaygan uu soo gaaro like saar, commentigana ay soo bixi soo waay waxay tahay dhiirigelin aniga. haddii aadan ila joogin waxaan ku leeyahay haddii aad videogayga aragto ha idhaafin oo subscribe ideh, waxba kaama ba'ayaan. like saar, waxba kaama ba'ayaan. commentigii isoo geli, waxba kaama ba'ayaan because walaasha ayaan ahay, mar waalidka ayaan ahay, mar waxa waaye wax walba ayaan ku noqon karaa maasha Allah. intaas ka bacdi waxaa idin leeyahay maanta iyo Muqdisho wallaahi waxa weeye waxa iska jiro xoogaa iska isfahan la'aan shacabkii iyo ka dhaxayso iyo dawladii. sababta keentana waxay tahay ma ahan mid ay dawladdu ku qaldan tahay, ma ahan mid ay shacabku ku qaldan tahay, ma ahan waayo Soomaalidu markii la joogo Soomaaliyo dadku waa iska garab rarato oo alyoom ayaa inta loo baxo oo la soo shaqeysto ayaa maxay ahayd habeenkaas iyo maalintaas guriga lagu dabartaa. horta cudurka Ilaahay hayo, Ilaahay wax ka baryeena inuu cudurada Ilaahay dhinac naga mariyo. maxay ahayd caafimaadkana Ilaahay hayo, caafimaad khayr qaba Ilaahay ka baryeena. waxaa kaloo dadka fari lahaa in la duceysto oo maxay ahayd mar walbo adkaarta la aqristo, Ilaahay lagu kalsoonaado oo kalsoonida Alle wax ka wanaagsan ma jiraan. intaas ka bacdi dawladda Soomaaliya waxa waaye waxay sameysay dadkii masaajidada waxay dhahday lagu dukan karo shalay jimco ahayd, aniga kama soo hadlin barnaamijkaas. waxay dhahday albaab lama furi karo oo lama ganacsan karo. waxay dhahday maxay ahayd waxba lama qaban karo. nin baahan bugta ma ka baqaa waa maya, nin baahan bugta kama baqaayo because waa baahan yahay. naf gaajahaysana haddii godkaan gal la dhaho inay gelaysa hubaa aniga. dadkii waa maxay ahayd haddii dadkii ay dhahay yacni joogsada la dhaho qof baahan oo baahi guriga ay ka soo ceerisay bal joogsi miyuu yeelayaa? maya, ma yeelaayo. laakiinse waxa waaye talada ay bixinayso dawladdu way fiican tahay oo hala kala fogaada maxay ahayd inkastoo dadka badankooda aysan awoodin in ay kaligiis uu ama bijaaj kireysto ama uu gaari taxi kireysto. dad badan oo waxaa jiro magaalada koonaheeda kasoo shaqo tago usoo shaqo tago suuqa bakaaraha. waxay u baahan yihiin gaadiid ay raacaan, waxay u baahan yihiin meel ay yacni shaqadii xilli horena ay uga yimaadaan, habeenkii markay hooyanayaanna ay xilli hore guryahooda u hoydaan. oo dad badan oo waxaa jiro saaka intay ilmahooda quraac soo karsadeen haddana hadhowtii cashadii ayagii oo wato oo adeegoodii waxooda sii xambaarsan dib guryahooda ugu noqdo. qofkaasi inuu lugeeyo waxay ku noqonaysaa dhib. maxay ahayd bijaaj inuu kireystana waxay ku noqonaysaa dhib because alyoomkii uu maanta uu soo shaqeeyaba haddii ay go-an baag uga qaadato maxay ahayd bahalkii bijaajka way dhib badan tahay. marka wallaahi xaaladu waa iska bariga dhexe. dadka kolley waxaan dhihi lahay aniga Ilaahay caafimaad hayo. talada dawladeena kama weynin, inaan wax ka maqalnaana waxay yacni kama weynin, laakiinse waxaa jirta baahi because dadkii dad dhaqaale wada haysta ma ahan. dadku adduunka u kala baxaaba 3 dabaqadood. qof waa eber oo meeshii ugu dambeysuu taagan yahay, qofna maalintaas ayuuba dhacsadaaba alyoomkiisa oo dabka uu ku shubtaa, qofna waa qof wax haysto. marka qofkii maanta aan waxba haysanin, marka qofkii ay noloshiisu alyoomkaas ay ku xirneed oo maanta wuxuu usoo qaraabtago ilmihiisa iyo xaaskiisa u geysan lahaa ama hooyadii u geysanaysa ilmaheeda caawa waxay ayada usoo qaraabto xagee bay aaday.
kii aan waxba haysanin oo maskiinka ahaayo maanta islaamkiisa inta usoo qaraab tago 2,000 iyo 3,000 iyo 4,000 iyo wixii loo aruuriyo kun loo geeyo intuu qaato gurigiisa ula noqon lahaa waa kasii xag jirtaa maadaama ay dadka aysan dhaqaale haysanin dowladda aysan haysanin dhaqaalo ay maxay aheedo dadkii ay ku fariisiso oo dhaada anagaan noloshiina qabno inta beri oo yacni bantooga aan kusoo rognay wiilashiinana waa in siinayna aysan awoodin anigu waxaan dhihi lahaa la isku naxariisto teed kale waxaan dhihi lahay askarta Soomaaliyeed maxay aheedo waxa aad raadinaysa waxa aad diidaysaan waa cudurku inuu faafo Soomaalina way meel adagtaa runtii waxaa laga yaabaa mid inuu kula dagaalamo oo sida adiga maanta waxa adiga aad wadid oo aad u sheegaysid oo qalad u arko laakiinse ul hada inta dhinac kala marto aad dishid oo aad hadid bariha joogso say ii celi kartaa aniga way garaacaya miya way ii garaacaya sabab uu leeyahay ma isdhahaayo qofkan askari Soomaaliyeed waaye wuxuu ka naxayaa noloshaada wuxuu ku diidan yahay inaad cudurka yacni aad soo qaado ama adiga hadii aad maxay aheedo uu faafo ma jirto way ii celin karaa aniga maxay aheedo ii garaacaya muxuu wax ii yeelayaa uu leeyahay marka waxaan dhihi lahay Soomaalida ayaguna waxa waaye xoogaa intay taxadar sameyn karaan ilaahay ayaa cudurkaaneeto keena dadkan ka ilaalin kara qofka hadduu fariisi mayrto maxay aheedo qofka bini'aadanka oo kaleetana uusan la sameynin yacni inuu yacni u dhawaado oo kaleete marka waxaan dhihi lahay xoogaa waxaan inay yaraadaan laga yaabaa laakiin dilka iyo ceersiga iyo masaajidada Soomaalida horta 100% waa dad diintooda jecel masaajidada inuu ku dugtaan jecel in ay maxay aheedo masaajid maalin iska maqnaanin jecel waxa waaye marka qofka saas dad badan oo ani waxa aqaanaa aan gurigooda haday salaatu yacni maxay aheedo salaad subax ay tahay iyo hadii duhur iyo casrba ay tahay aan jecleen inuu gurigiisa ku dukado asagii oo u jeedo masaajidkii asagii oo u jeedo maxay aheedo jamaaca inuu la dukado marka maxay aheedo qofkaaseeto ma yeelayo in maxay aheedo joog gurigaada la dhaho ha ka soo bixin la dhaho ha ku cibaadeysan la dhaho aniga ahaan farxiye maanta wallahi dhibaan qabnaa because dhibka aan qabnaa waxay tahay macallimiintii dugsiyaasha ama ku iskuulada waxay naga hayeen horta waalid markaan nahay culeys aad u ballaaran taas oo ilmihii oo maxay aheedo dugsigana looga hayay dhibkooda aan arki jirin maanta meel walbo waxa waaye weerar nooga socoto oo ilmiyaana weereenaa inta la soo fasaxay gurihiina la dhahay ordaha ka baxa banaanka u baxa adiga dugsiga laga soo fasaxay iskuulkiga laga soo fasaxay laakiinse maxay sameynayaan wadooyinkii dhooban yihiin dadkii ihtuuriyeenayaan maxay aheedo halkaan banooni ku ciyaarayaan laba isku dilayaan ayagoo kooxo 10 20 ayay hoos iskaga jiraan marka dhibka jira intaas ayaga iscircirsanaayo ayaga iswadato ayaga istuuriyeenaayo aniga kuhayga maasha Allah afaacura ay joogto ilaahay ii deysto dhammaan awlaadda Soomaaliyeed iyo qof islaam walba oo awlaad lan ilaahay awlaadiisa u deysto ani intii karaankayga waa celiyaasa u dhow orday oo ule u sitay oo ani la awlahay war fariista war joogsada maxay aheedo wallahi bilaa waa xakaare macallimiintu marka wax wanaagsan maxay aheedo ay naga hayeen waxay hayeen awlaadaasi hayeen waxay hayeen wallahi bilaahi dhibay naga hayeen u duceyneynaa waayo qof walba oo maanta hooyo walba oo Soomaaliyeed hadii la weydiiyo challenge gurigeeda ka taagan ilmihii ma u dulqaadan karto la isma arki jirin awal way baxayaan salaad subax soo kacay dugsiga aadayaan quraac loo soo deynaya waa noqonayaan breega yacni duhurka la soo deynaa oo seexana cunugii haduu iskuul aada haduu dugsi aaday dugsigiisu ku noqonaya habeenkii maqribkii la soo deynaya adii maqribkii iskuul hadana galayaan cishihii ka imaanayaan cishii cashadooda la siinaa waa bal seexinaaba markaas wax dhib lagu qabo ma leh hadii dugsi ma la iskuul ma leh waxba ma leh xaalad yaa wax iska noqoto xaalad iska bariga dhexe marka kulli cala xaal warkaygu wuxuu u socdaa hal yacni dadka Soomaaliyeed ha loo naxariisto dawladda dadka u naxariisato dadkii waa dad baahan dadkii waa dad rafaadsan
waa dadaan awoodin in ay noloshoodii maantay ay intay aqoon leeyihiin ama laba maalmood ay sheegteen maalin haddii guri ku xirnaadaan dadku baahi u dhimanayaan. marka hal isku naxo haddii ama noloshooda la kafaalo qaadi karin anigu waxaan dhihi lahay hal iska daayo, cudurkan ilaahay hayo, caafimaadkan ilaahay hayo, wixii dhici lahayna waa dhacayaan. marka insha allahu tacaala sidaas ayay noo ahaanaysaa. mar walbana waxaan isku dardaarmaynaa cabsida ilaahay, waxaan isku dardaarmaynaa in maxay aheedo mar walbo daacadnimadu ay jirto, dadkuna ay ahaadaan dad ilaahay ku xiran. maasha allah bishii ramadaana noo soo dhow. marka insha allahu tacaala waxa waaye waxaan rajeynaynaa in aan guul iyo gobonimo idinkaga tegayaa, nolol iyo horumar idinkaga tegayaa. waxaan idin leeyahay ilaahay cudurada iyo aafooyinka iyo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha socdo rabbi subxaana watacaala asaga awoodiisa ay weyn tahay hanaga mariya dhinac. maasha allah waxaan idin leeyahay dhammaantiina waa idin jeclahay. fadlan haddaa videogeygan aragto isii sheergarey, haddii aad maxay aheedo isii sheergareyso inaad suulka ii saarto oo leeg ii dhahdo ha iga baqiilin, kadibna commenti qurux badan aad iisoo bixiso oo yacni aad haddii rabtid maxay aheedo commenti qurux badan iisoo bixisid si anigana ay u noqoto dhiiranaan, adigana aad u noqotid qof walaalkiis ama walaashiis caawiyey. waa mahadsantihiin. waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo ayaa idin rajeynayaa. noloshu ha idin wacnaato, weligiina dhibaato idinma aragto insha allahu tacaala. waxaan idin leeyahay